Yorubahan markaan iska hadlaan aniga Hargeysa iyo Muqdisho waa ismi waa laba magaalo isku mid ah anigu fanaanad reer Soomaaliland aan ahay fanaanad afka Soomaaliyeed ku hadashanahay meel walba af Soomaaliyeed lagaga hadlo ama lagaga dhawaaqo waxaan leeyahay waan tagayaa fanaanka iyo wariyaha iyo dhakhtarku intuba xuduud ma laban oran karaa waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan waxa wanaagsan in uu meel walba uu isagu waqti xaadirka fanaanintu waa iska sida dadkan ay sheeg maxaa la yiraahdaa ay wax ku soo degaan oo kale iska dhaqaaqo kale weeyaan fanaanintu habeenba meel baa ku soo dhacaysa wuxuu jecel fanaanku inuu tago fanaanku la caqabadeeyo maaha fanaanku maskaxiyan iyo moraaliyan buu heesaa hadana moraal ama maskaxaanu haysan waxaan oran karaa fanaanku wuxuu heesayaa ama wuxuu bulshadiisa u soo bandhigayaa ma jirto fanaankuna waa muraayada bulshada waxaan leeyahay marka cid doonta ha noqotay anigoon cid aan ataagaya aanay waqti xaadirkan aanay jirin fanaanka caqabadaha laga qaado